gudoomiyaha deegaanka Garabis magacaygana la yiraahdo Mawlid Maxamuud Omar waxa aan halkan ku soo dhaweynayaa maamulka degmada Faraweyne maamulka cusub ee noo yimid waan soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa deegaankan Garabis waa deegaan ballaaran inta uu xukuma deegaanka Garabis waxa weeyaan waa 5 tuule oo hareeraha ka kala xiga waxa deegaanka dadka degani tirada qoysasku wuxuu gaadhaa 600 oo qoys waxa weeyaan deegaanka inta leek goob caafimaad hadduu caawo qof xanuunsado ama ay gabar umusho irbad yar oo meel looga soo qaadaa oo dhig joojin ma jirto waxa ugu dhow Hargeysa halkaana waxa ugu dhow Caramadu oo imika MCH keedu uu 2 bilood shaqeeyay xaqii waxbarashada xaqii wadada xaqii beeraha waxaanu doonaynaa in la nagala shaqeeyo madaxda noo timid ee hogaamiyaha gudoomiyaha cusub ee degmada Faraweyne Masar Seekaawi gudoomiyaha ku xigeenka waa nimo wada naaleys leh laba suul xogayaha Masar Ismaaciil iyo ciidanka bilayska sharafta la socda inta ka bacdi gudoomiyaha waanu soo dhaweynaynaa wada shaqeyn wanaagsan baan leenahay nin aqoon leh oo ilbaxa oo dhalinyaro ah oo furfuran oo aragtaan marun baa la sarkaa horta markaan aragmkana deeqo weegi waxaan filayaa in wax badan loo qaban doono waxa kale oo ka codsanayaa gudoomiyaha waxaanu nahay deegaan magaalada aad ugu dhow haddana ugu fog sababtu waa dariiqaanu kaga dhaadhacno magaalada nagaga toosin ma jiro uu naga xidhay imika dawladdan Soomaaliland xusbigan dawlad madaxweynaha cusub iyo dawladdan cusub arrimaha asaasiga ee caafimaad ka mid yahay ee rugbileys ka mid tahay aad iyo aad oo deegaanka uu ka arkaya iyo waxbarasho wixii ay ka dhimanba iskuulo dhisan oo bilaab caalamiina kuwa aan dayactirayn wax walba way jiraan haga beeraha dhulka Soomaaliland lambar 1 ka nahay dhul beereedka marka xaabaa la yiraahdo tuulooyinka xaabale ku yaalaan ka mid nahay waxaan filayaa degmada meel beer la yiraahdo gobolka Togdheer iyo Saaxil Midbaah iyo xaabaalu bas ku carraa dhulka Soomaaliland marka haga beeraha dhulka ku haboon dhulka ugu dambeeyaan ku jirnaa sababtu waa tabaclaan magaaladana waa dhowr 10 kiiloomitir baan u jirnaa tilmaan nuguma yeelade gudoomiyaha tusday wixii aan tabanaynay waana soo dhaweynaynaa waana salaamayna waana nin horta durbadaan isku dega gudoomiyahayga waa kaalay kala du shalay noo yimid oo saakana la joogo waxa ninkaasina tusay inuu leeyahay nin la gudnoo gudoomiye ah aan daba soconaan oo ahayn ilaahayna hawshiisa ku garab garaan leh والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمن الرحيم. والسلام يا مرت شرفك. نوجي يمد فروينه وقامين يا قدوميها محمد أبيب. سيدو كلا واحد سلام يا قدومية كحجين كأيو حقايا يو مرتدا كلا لسعوتها. runtii hadalka odayaashii gudoomiyihii iyo odayaashii kala dhameeyay oo sheegay baahiyihii ay degmada u baahnayd runtii degmada Garabis waxay ka tirsaneed Faraweyne haddana waxaad moodaa inay ka goonayd waayo weli gudoomiye intuu yimid dadka wareystay oo baahiyahoodii weydiiyay oo la sheekaystay horta runtii Maxamed Umar anigu shakhsiyan aan ogahay gudoomiyaha kugu soo dhaweynaa Garabis waxaan ku sheegay meel kasta oo la joogo waqtigeena marka la joogo waxa shaqeeyo wax la yiraahdo waxbarashada meel aan waxba lagu baran oo aan iskuul lahayn oo aan caafimaad lahayn oo aan saldhig lahayn meel wal ay noqoto way ka dambaysaa tuuladu waa tuulo weyn oo waqti badan soo jirtay haddana iskuulkeedii saaka markay soo marinay waxaad arkaysay inay ka muuqdaan baahiyo fara badan oo aan waxba hore looga qabanin waxaan rajaynayaa inaad xagga dhinaca waxbarashada nagala shaqeysaan sida Maxamed sheegay tuuladu waa tuulo wax soo saar la hadii la tacab la geliyo waxaan doonaynaa xagga wax soo saarka ee qodaaladan inaad nagala shaqeysaan sidoo kale waxaan doonaynaa oo aad uga baahi qabnaa inaanu MCH helo waayo tuuladu waa tuulada weyn sida gudoomiyuhu sheegay 5 tuulo oo kala ay si maamusha
600 oo qoys oo bila caafimaad waa dhibaato weeyaan wixii dadweynuhu ku darsanayo contribution laga gelaya annaga dib isku noqon laakiin saaka waxaan doonaynaa inaanad faramaran nagala noqon waxaan doonaynaa saldhigyo kale security waa muhiim gudoomiye haddaanu mar walba laba qof oo isqabsay farweyne la soo hadalno oo haddana la yiraahdo gaari askar la idinku keenaya keena oo hargeysa la hadalno oo la yiraahdo waxa la idin soo diray la waayo iyadana waa dhibaato iyana waxaan doonaynaa saaka hadii ilaahay yiraahdo insha Allah ta'ala inaad xagga saldhigana aad wax nagala qabato waanu kugu soo dhaweynaynaa garabis kulay waa gurigaagii waa farweyne marka aad baan kugu soo dhaweynaad maasanta maanta horta waa safarkaygii waa maalintii saddexaad ee aanu kormeerka degmada aan ku socono waana tuuladii toddobaad weeyii ee aanu kormeer ku marayno horta halkan waa garabis waa deegaan ballaaran deegaan aad ballaaran laakiin deegaanka waxaan horta ugu bushaareynaya maamuladii hore istaba joog ahaa halkan garabis markay tahay qalin beesal bay garabis ku qornayd gudoomiyaha xoogay waxaan u sheegayaa abal qalin beesalkii hore ay ku qornayd garabis inaad ka masaxdaan saaka qalin biiro lagu qoro way maamuladaas soo daba joogay mabay soo gaari jirin halkan mana ima jirin marka waxaan leeyahay reer garabisna taa ku bushaareysta in saaka qalin biiro la idinku qori doono oo ay degmadu in badan baad cabateen wax gaar ah xaqna waad ku cabanaysan marka kulli hadalka badan ma xoogay waxay ka dambeyn doonaa gudoomiyaha sida sharafta leh quruxda badan leh ee wanaag ku dheehan yahay ay noo soo dhaweeyeen markooba ay masaxay mar shanaad baan idinka mahad celinaynaa maanta waxaan ku jirnaa kormeerkii maalin saddexaad ee gudoomiyaha cusub iyo aniga laftiga xogahay cusub aan ugu kuurgalayno barashada aan la sameynayno tuulooyinka hoos yimaada degmada Faraweyne kulay meel kastaba baahideeda iyo dhibteedu way ka muuqataa halkan maanta aan joogno waa garabis oo degmada baasheedii bari ku taala waa goob istaraatiiji waxa marta wadada ilaa berbera iyo ilaa isku xidhan meesha leeyahay imi oo wadada la wada bariis ayaa soo marta waa meel istaraatiiji insha Allah ta'ala waxaan waxa weeye idinka ballan qaadnaa sidoo gudoomiyuhuba moogtay ka dhawaasho doon hadii la yiraahdo in aanu si dhow idila shaqeyn doono halkan aanu ka dhigan doono hoygayga labaad insha Allah ta'ala taasi marka waxaan ugu baraarujinayaa dadkan degan muxuu ahaa tuuladan garabis waxa weeye waa tashi baan sameyn doonaa xaaladaha waynu ku geli doonaa hadii la bedel kale waan isla xisaabtami doonaa waxa weeye anagana la xisaabtadaan anaguna aan la xisaabtano waxa weeye hadii la bedel kale ama wax barasho noqoto ama caafimaad ha noqoto wax kasta oo moogtahay maanta in asaasi oo ka maqan moogtahay adeegii muxuu ahaa tuulada insha Allah ta'ala si dhow baan la shaqeyn doonaa hadii la yiraahdo waan idinka mahad celinaynaa sharafta la iyo qiimaha badan ee noo soo dhaweyseen waxaan ku soo dhaweyn doonaa gudoomiyaha cusub Maxamed Abi Cismaan Seekaawi ugu horeyn Ilaahay baa mahad leh isu keenay halkan aynu joogno tuulada Garabis inaynu danaheena kaga wada hadalno ka shirna sidaynu wax u qabsan lahayn tuuladan aynu horumar lahayn waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa odayaasha iyo dadweynaha reer Garabis sida quruxda badan leh ee martisooyada quruxda badan leh ay noo sameeyeen ay nagu soo dhaweeyeen baan uga mahadnaqaynaa waxa kale Ilaahay mahadiya Garabis inay tahay meel aad u fiican oo aad u qurux badan runtii meel marka degmada Faraweyne la eego iyo tuulooyinka Faraweyne tuulada ugu muhiimsan inay tahay ee ugu sareysan kulay sida ay sheegeen mas'uuliyiintii ugu horeeyay waa maalintii saddexaad ee ku jirno kormeerkaygaana ugu kuurgalayno xaqiiqda taala tuulooyinka degmada Faraweyne intaas oo tuuleenu soo marnay baahiyo badan baa ka jira meel kasta baahidu way taalaa halkan saaka waxaan laakiin uga ballan qaadaynaa in ay rug place sida ugu dhaqsaha badan la ay u heli doonaan wali ma aha waa markii koowaad ee wax loo ballan qaadaya inaheegu ma aha ballan qaadku markaan leenahay inaan imika dhisayno wadadii loo dhisi lahaa sidii lagu dhisi lahaa iyo dariiqii lagu dhisi lahaa ayaanu anagii reer Garbiseed aanu ka wada fadhiisanaynaa in rug place ay hesho sida ugu dhaqsaha badan ay hesho iyo in MCH hesho labadaba xaq bay u leedahay sababtoo ah dad badan baa ku nool deegaan badan baa ku xeeran waxaan halkan aan uga sheegaynaa muxuu ahaayay dadka reer Garbiseed wax qabadku iyo wax dhismo iyo wax tarku gacantiina ayuu ku jiraa gacanteen oo isku tagna ayuu ku jiraa ma aha kaliya inay degmada Faraweyne wax tarayso reer Faraweyne meel kasta ay joogaan
hadday isku tagaan saldhig iyo caafimaad iyo dhakhtar iyo wadooyinba way samaysan karayaan baryaya in ay waxbarashada carruurta ku dadaalaan oo ay macallimiinta ka daba tagaan oo yidhaahdaan macallin oo ardagayagii meeshan uu yimaado uu ku yimaado waxba nagama soo alfaxo oo ay carruurtooda ka war hayaan waxay dhiganayaan iyo waxa loo soo dhigay intaba waxaan aad uga xumahay deegaanka Garbis ee ballaaran ee inta leegnay iskuulkayga waxaan macno badan lahayn oo arday ay joogto inta joogtaana ay tabaalo badan ka muuqato aad baan uga xumahay hore haday u dhacday inaan laga warhaynin macallimiinta iyo iskuulada anagu ka maamulahaan waxaanu joogtayn doonaa tabagalka macallimiinta sababtoo ah waxa lagu dadka la beeraayo la ilaaliyaa waxa la dhaqdo waxa ugu muhiimsan waa dadka ugu wanaagsan haddaan carruurta mustaqbalkooda la ilaalin oo laga talinin oo aan laga tashanin waxba la jiri maayo Faraweyne jiri mayso Garbisna jiri mayso inana waxba jiri mayno arinta waxbarashada waxaan ku celcelinayaa waalidiinta walibana ugu celcelinaya in ay carruurtooda ka war hayaan oo macallinka carruurtooda wax soo dhigaya wuxuu soo barayo akhlaaqdiisa iyo waxbarashadiisa intaba ay ka war hayaan anaguna waan la kaashan doonaa wixii culays jira ee ama macallin muxuu ahaay wax dhigashadiisu fiicneen ama aan muxuu ahaay iskuulka aan furid la'aantiisu ay jirto ama baahiye iskuulku jirto waanu la kaashan waanu inaad nala kaashataan sidoo kale inaad nala kaashataan qofka waalidka ee carruurtiisa magaalada ama tuulada joogto ee aan waxbarashada carruurtiisa geynaynin inaad kula taleysaan ugu nastaxaysaan inuu carruurta geeyo hadduu idinka yeeli waayo xaq baad u leedihiin inaad tirahdaan war waxa nagala qabto aad iyo aad baad mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu oo soo dhaweynaya gudoomiyaashii Faraweyne iyo ku-xigeenadii iyo ciidankii waxaan ku soo dhaweynayaa 6666 kaadood baan ku soo dhaweynayaa salaanta islaamka ta u qaalisan baan ku soo dhaweynayaa taa ka bacdi annagu waxaanu nahay daadu reefeednahay degmada Faraweyne wax badan baan uga baahanay iyo wax badan baynu uga baahan tahay waxaan uga baahanahay baan idin sheegi waxaan uga baahanay baraagtayadu waa dhowr iyo waa 30 oo saddex baa laga cabaa waa wada kharaab inay maanta degma ahaan wax nagala qabtaan inay degma ahaan noola hawl galaan taa waanu ka rabnaa iskuulka iyagu waa qabyo oo waa 2 galaas oo qura 3 galaasna uu maraya way isku dhex dhigtaan carruurtu taasna ee waxbarashadu kuma anfac kuma aha meeshii la mid ka hayd 4 galaas ama 5 galaas bay maanta leedahay taana in dhammaystiraan jecelahay macallimiinta dhiga wax alla wax maanta guna ahool ay qabaan ma jirto inay gunooyinka macallimiinta ka helaan baanu doonaynaa taasina waa mid ta kale dhakhtar baanu u baahanahay dhakhtarka maanta xanaanada maanta arrimadow hadday tayo leedahay wayna anfacaysaa haddaanay tayo lahayn tanna ma anfacayso waxa weeye sidaa iyo dadaal baanu annagu rabnaa in inoo dadaasho degmadu iyo dawlad ahaanba aanu ku wada hawl gallo ta kale wixii cashuur ah iyo wixii kale ay dawladdu nooga baahan tahay annagu reefeedahan diyaar baanu u nahay 100% والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. degmadana tuuladana joogna waa tuuladii 8aad ee kormeerkii aanu ku mareynay tuulooyinka saan wax uga ogaano runtii baahiyaha yaala tuulo kasta tuuladan waxa la yiraahdaa Fahda aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa sida fiican ee quruxda leeyahay odayaasha ay noo soo dhaweeyeen ee Balaturxaanta leh uga hadleen baahidooda baahi oo dhan Ilaahay baa horta bini'aadamka baahi dira haddana in la dadaalo oo labada dhinacba laga dadaalo dad ahaan iyo dawlad ahaanba uun baa inala gudboon talooyin yeelan doona insha Allah taala walaalo wixii baahi aynu qabsan karno waynu qabsan hadii Ilaahay dhaahdo Ilaahayna waxaynu ka rajaynaynaa inuu Ilaahay noo dhib yareeyo sayna baahideenaas aynu u dabooli lahayn bidmillaahi kariim aad iyo aad baad mahadsantiin assalaamu calaykum بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
magacaygu waa maxamuud xasan suguul ahna gudoomiye ku-xigeenka tuulada Carramadow halkaaynu joogno waxa weeyaan iskuulkii Carramadow waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha degmada Faraweyne gudoomiye ku-xigeenka xoghayaha marti sharafka odayaasha sawirqaadaha Samatar Maxamed Maxamuud oo isna sawirqaadaha ku soo dhawaada degmadan tuulada Carramadow waxaan u mahadnaqayaa dhammaan inta maanta marti sharafka isku timid ee soo booqatay ee maamulka leh ee odayaasha leh ee deegaanka leh halkan isku timid aad iyo aad baan soo dhaweynaa mahadsantiin waxa weeyaan degmada Faraweyne baahiyaha fara badan baa yaala oo ay leedahay baahiyahaasi gudoomiye waxaan kaaga baahanahay inaad baahiyahaasi degmada Faraweyne yaala aad hawsheeda dhaqaajiso intii horena ilaahay qadartiisa sidii ahayd un bay ahayd dee qadarka Allah cidna lagu canaan maayo maanta adiga waxaan leeyahay dhaqaaji ilaahayna ku gaastiro meesha baahiyo badan baa yaala caafimaadkii leh biyihii leh beerihii leh waxbarashadii leh dabagalkii leh haddii la isdabagalo la isxisaabiyo gudoomiyaha la dabagalo oo deegaanka odayaasha la dabagalo oo macallimiinta la dabagalo oo kuwa caafimaadka la dabagalo wax walba way hagaagi haddii laakiin faraha laga qaado la isdabageli waayo wax qabad soo bixi maayo wax qabadku wuxuu ku soo baxaa calooladeeg iyo la isxanuuniyo oo qof kale yiraahdo waxaas ka dhiman wax hawsha fuli ayuu horta ku dhaaqayaan haddii gudoomiyaha kelidii uu noqdo la shaqeyn way dhaqaaq maayo deegaanka haddaan nahay waxaan ballan qaadaynaa inaanu wax laal wixii degmada Faraweyne naga soo noqda anu la qabano oo dhaqaajino degmadu xaq badan bay nagu leedahay xaqa ay nagu leedahay wax nagu waajibay inaanu fulino degmadu xaqaanu ku leenahayna waxa ku waajibay inay fuliso waxa weeyaan deegaanka balaaran baan nahay MCH baan leenahay dumar iyo caruur ayaa meesha la keenaa ma socon karaan waxaan u socon kareen markay meel fog gabadho markay foolato de gaari xamaar ku soo qaadi mayno kaariyoona ma bageedo ma qabanayso waxa loo baahan yahay in baahiyaha asaasiga ahaa in hawsheedii la qabto la dabagalo gabadha tuulo kale ku fooltay nagu dhow MCH uma dhowa oo muliso uma dhowa halkayga ugu dhow tagaasi baa loo soo karay ama baabuur baa magaalada ugu dooray kala loo soo gurmay inta waxa laga beenay gabadha isku godaba oo meesha hawl ka timaado gudoomiye waxaan ka codsaynaa iyo gudoomiye xiniyo xog haye inaad hawshaasi aad hawsheeda aad daba gashay ilaahay ku astureen waxa weeyaan waxbarashada haddii waxbarashadu fadhiisato oo dhaqaaq weydo deeni wax fadhiid buu noqonayaa waxa fiican waxbarashada kormeer haddii la waayo dee laba dhaqaaqayo macallin gurigiisu iska seexanaya waalidku ardaygiisa xooluhu diranaya haddii kormeer yimaadona marka canaan timaado nin walba ilmihiisa dee si xoolo raaci waxbarasho diranaya waxaan leeyahay kormeerkii macallimiinta ha la soo celiyo oo halna daba galo kormeerkii caafimaadka ha la galo waxa weeyaan odayaasha kale iga dambeyn doona baahiyaha wixii aad iyaga faahfaahin doona gudida caafimaad baa jirta oo MCH kan guddi caafimaad oo 5 qof ayaa ka shaqeysa oo dadweynaha caawiso dadka isku xidha oo deegaanka iyo dadka caafimaadka isku xidha oo wixii baahiye meesha jira dadweynuhu marka ka soo cawdana gudbiya marka dadka ay soo cawdana gudbiya wixii hawl ay qaban kari waayna gudida caafimaadka ayaa la qabato raggan doorba leh way mahadsan hawshoodii si wanaagsan bay u wadaan oo qabtaan habeen iyo maalin markii loo baahdo way yimaadaan wixii toosina way la yimaadaan wixii caawimo wax hawlqabada way la yimaadaan la qabtaan deegaanka kalena si wanaagsan buu la shaqeeyaa gudoomiye waa inaad hawsha aad nala dhaqaajiso waxa jira gaariga imika ka soo dhaaqa 3 saacadood ama 2 saacadood buu soo soconaya kaliya wuxuu la socon kar leeyahay wadalaan wadadii markaad halkan gaariga yar tuqaankii af dhufanaya oo markaaba ma dhaqan karayo taariikhda banjaraya waxa loo baahan yahay in wadooyinka xoog la saaro marka wadada dhaqaaqdo gaarigii dadka soo caawin lahaa markuu wada helo degdeg buu imanaya markuu wada waayo dee gabadhii fawlaysay gaariga yar tuqaanka ama taxiska la soo saaray maruu dhaqan kar waayo inay isku godo ama hadii dhig baxday dib ku kantay ay noqonaysaa taasina waxa leeyahay gudoomiye gudoomiye xog haye hal laga hawl galo oo sida wadooyinka waa lambar 1kii hadii wada la helo hawl fudayn baa la helay hadii wada la waayo dee wax hawl ma dhaqayso waxa leeyahay odayaasha iga dambeyn doona waxaan ma ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha caafimaadka Cabdi Ibrahim Abakar
gudoomiyaha tuulada degmada Faraweyne gudoomiye ku-xigeenka xoghayaha marti sharafta kale ee la socota dhammaan odayaasha deegaanka waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan ka hadlayaa laba qodob waa qodobka caafimaadka qodobna waa qodobka biyaha hayo horeeya qodobka caafimaadku halkan waa tuulo ballaaran inta idin muuqatay aad arkaysaan in ka badan baa caymaha ku jirto hareeraha naga xigta dadkaasi dad caafimaadka aad iyo aad ugu nugul weeyaan dadkaasi waxay u badan yihiin waxa weeyaan caruur iyo dumar waana dadka xanuunka u nugul shaqaale intan ka khibrad badan baan u baahanahay in loo soo kordhiyo in mushaaharadooda iyo dayactirkooda iyo nidaamkooda iyo gunadoodan laga warhayaan u baahanahay taasi waa xagga caafimaadka qodobka nagu sidarna waa gaariga ambalaaska imika haday gabadh koonaha ku foolato halkaas in hablaha la kaxiyo laga umuliyo wax lagu soo qaadaa ma jiro fooshna wax iska dhaqso badan oo gabadh shaqaysanaysa laga yaabaa in ku soo boodaba taa iyadoo caafimaadku waa taa ambalaas baan ka codsanayna inuu noo baadi doono insha Allah inta dadaalkiisa talabaad xagga biyaha cuntada waa 1000 tira Soomaalidu kood waa biyaha anagu qoxoonti ka soo noqonay oo dadka taalkooda aad iskaga gaaban yahay ayaa wadanka lagu soo noqday barkadu xorfaday u badan yihiin ama u badnaayeenba wax yar baa ka samaysnaa wixii ka samaysnaa kaariya dul mariyay tibaa ku ag dhacayo way iska wada daateen dayactir bay u baahdeen waxaanu ka codsanaynaa Maxamed Abiib garabkiisa Allah gale inuu xagga biyaha iyo xagga caafimaadka iyo xagga waxbarashada intaba inuu naga warhayo inuu kormeerkiisu sida uu noo soo booqday ee wanaagsan uu noo soo dhex fadhiistay istaba joog u ahaado in annana aanu la shaqeyno wax alla wixii ay degmadu uga baahatay dadkeeda aanu diyaar u lanahay degmaduna wixii dadkeedu uga baahatay insha Allah tacaala ay diyaar u ahaato aad iyo aad baan idin salaamayaa xogaayinta odayaasha la socda dhalinyarada odayaasha tuulada dadweynaha sharafta leh isugu yiin waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacda salaan hadalkii waa la dhameeyay odayaashii hore ee ka horeeyay waxaan ku leeyahay gudoomiye ilaahay xilka ku fududeeyo xilku waa kugu cusub yahay ilaahay xilka ku fududeeyo degmaduna waa ballaaran tahay oo dayactirkeeda iyo hawsheeda ay leedahay Allah ku fududeeyo wixii baahiyaa ee tuuladan iyo tuulooyin kale leeyihiinba Allah ku fududeeyo ilaahay baan ku baryaynaa in insha Allah kii ku guuleystay degmada kor u qaaday degmooyinka gaarsiya aad noqoto gaar ahaan degmada tuuladeen tuuladu waa ballaaran tahay horena waxba looga qabtay insha Allah baaqina aad ka qaban doona waxaan baa xaalkaygu yahay aniga duco iyo dardaaran kolaadii xilligu saaray de inaad fadhiisato oo aad maad gurigaaga iska tagtaa ama aad xafiiskii uun fadhido kulli waa laga qurux badan yahay xafiiskii inaad la fadhiistaa waa muhiim laakiin in dadkii loo shaqeeyo oo dadku meel kasta uu joogo koladay meeshii miyii tahay oo ay tuulayoon kala fufug tahay socodkooga iyo ka warhayntooda iyo dhaqdhaqaaqooga u badnaado insha Allah ilaahayna ku fududeeyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. وقهرين إلهي بمحض له إنه سوى فتشي إنه هل كان يمادنو إنه قوة نبض قبنا ونبض قليع. مرباد وحنو مهدنا قينا ددوينها تولدا عرمدو سيدا شرفت إيا كرامة له إنه سو دويين إنه قابلين. سيدا نهرو الشيغي كورمير كيغا نوحو دارين يحي inaanu u xogogaal noqono degmada Faraweyne iyo tuulayaasha hoos yimaada guud ahaan baahida aad sheegteen iyo baahiyo kale oo badan ba way yaalaan waxaan u mareynayaa Faraweyne baahida inay ka wada siman tahay xagga waxbarashada iyo xagga biyaha iyo caafimaadka labadaba ilaahay idinkiisa waxaan ka rajaynayaa ilaahay baa baahida dhameystiray inuu ilaahay nala qabto baahiyahaas waxaan ilaahay ka baryayaa inuu ilaahay noo soo ururiyo waxa kale oo nagu dardaaraya nafteena iyo nafihiinaba inaynu gacmaha isku qabsano baahida jirta waxaan aad iyo aad uga mahadnaqayaa dadweynaha Faraweyne meel kasta ay joogaan sida walaalnimada leh quruxda leh ay isku caawiyaan qofkii dhibaataysan ama qofkii hawl ku dimaado runtii Faraweyne waa magaalo caasimadda Hargeysa u jirta wax yar oo aad u kooban haddana baahideedu
waxaad moodaa inay ay ka go'aad ayna caasimadda Hargeysa iyo Soomaaliland looga taliyo ay jirto dhowr boqol oo kiiloomitir si kastaba ha ahaato wixii ka habsaam wixii kalena Ilaahay idinkiisa waxaan isku dayaynaa anagu inta taagtayada inaanu ka shaqeyno sidii ama idinka hal idinka baadi doono oo neef fadhiya hal idinka guro ama sidii la deelay hal yeelay bar wixii dhiman in wax laga qabqabto aan ku dadaalaynaa taad sheegteen ee dhinaca kormeerka iyo joogtada inaanu joogtayno taas waa shaqadayada annagana waa nagu kormeerayaa annaguna cidda meel kasta joogta ama macallin ha ahaado ama shaqafa caafimaadha shaqaale caafimaad ha ahaade ayaanu shaqadiisa ku kormeeri doonaa ku dabageli doonaa horda waxaynu haysanaynu hagaajisan doonaa wixii Ilaahay noogu soo darana waynu ku xamdi noqon doonaa insha Allah ta'ala waynu rajaynaynaa inay dawladda Soomaaliland runtii waddanka oo dhan bay mas'uul ka tahay meel kasta way taalaa bari iyo galbeed wixii aynu inagu xaq u leenahay inaynu ka helno insha Allah ta'ala waxaanu la socodsiin doonaa baahi kasta haday tahay dhinaca caafimaadka wasaaradda caafimaadka ee ku shaqada lahayd haday tahay dhinaca waxbarashada wasaaradda muxuu ahaayay waxbarashada ee ku shaqo lahayd waxa ka jirta nabaad guura oo dhuxusha la shidayo runtii dhaqan ku cusub faraweyne weeyaan wasaaradda deegaankana waxaanu leenahay flustrygeega inay wasaaradda deegaanka keensato oo uga howlgalaan annaguna aanu gacan siino oo kala shaqeyno sidii ay u badbaadi lahayd xaalufinta dhirta la xaalufinayo dadweynaha reer farweynena waxaan leeyahay waa dhuxushaasi waxba baahi nooma hayso inaynu iska dayno oo aan iyadana dhirta la shidin dhirtu waxay ka qayb qaadanaysaa deegaanka quruxdiisa iyo barwaaqadiisa ka qayb qaadanaysaa inaan dhirtana la shidin oo muxuu ahaayay dhirtaana ay nabad gasho sidoo kale waxaan deegaanka farweyne iyo tuuladan caramada weyn hadda joognaba aan ku boorinayaa in gacmaha la isku qabsado sidii wax loo qabsan lahaa ee looga maarmi lahaa cid kale dad wada xoogaynu nahay wada caafimaad qaba wadooyinka aad baa looga cabanayaa meel kasta inaynu inagu wadada gacanteena ula tagnayno jirano tii oodi ku soo dhawaadayno oodaha ka fogeyno annagana inaad shaqadayada nagu daba gashaan oo nagu canaanataan ilaan odayaasheedii iyo deegaankaygii baad tihiin xaq baad noogu leedihiin inaad noo timaadaan oo wixii baahiya jirta waxaa kaloo xusud mudan xalay 11 habeenimo ayaa la soo hadlay waxay tuulada anoo halka Garabis jooga tuuladan Caramadow waxa ku xanuunsanaya gabadh oo madheertu ay ku dhigtay oo umushay xaaladeeduna ay serious tahay MCH ka Caramadowna la tacaali waayo waa in degdeg loogu hela gaadhiga ambalaaska ee Farweyne yaala halka ambalaas oo kaliya ayaa degmada Farweyne yaala ayaanu halka ka soo dhaqaajinay saacado badan buu soo socday waxa Ilaahay mahadiyay inuu soo gaaray isla markaana uu Hargeysa uu la cararay xaaladeediina iyadoo serious ah oo anemia oo dhiig la'aan in la tacaalay imikana ay wanaagsan tahay wax ka qabasho fiicanna ay la kulantay Ilaahay idinkiisa ambalaasyo badanna waynu rajaynaynaa waynu heli doonaa wasaaradihi ay qusaysay hay'adaha qusaysana waan la xiriiri doonaa wixii taagtayada aad iyo aad baad mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh